وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل. قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل. تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وانساب مثل السلسبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودروستي أنكو قادنيني قصص في القرآن الكريم. قصة مانتا أن إني لو ذاقي وقصة النملة. قصدي قرآن شذا عيان كاير قصة أيا كجرته، دروس با كجرته، حكم بدن با كجرة. نبينا صلى الله عليه وسلم وحو إنو شاغي الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. حكمة وباددة قفك مسلم كيه ووحا أرادين حكمة ماشو كهلب وكقاتا وكفائديستا. حتى قرآن شذا wuxuu ka faa'iideysanayaa xikamka iyo duruusta ku jirta qisadeeda ayuu ka faa'iideysanayaa. walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inooga waramay qisadan quraanjada. suurad idil baa loo bixiyey suuratu namla. nebi sulaymaan calayhi salaam ilaahay waxa uu siiyey boqortinimo, waxa kaloo ilaahay siiyey nebinimo. wuxuu ilaahay u sakhiray wax badan oo xayawaanka ka mida. hadalkooga wuu fahmaa, shimbiraha hadalkooga wuu fahmaa. jinku ilaahay u sakhiray, dabayshaa loo sakhiray. wax badan ayaa la siiyey oon dadka kale aan la siin. nebi sulaymaan maalin baa waxa uu iskugu yeedhay askartiisii qaar ka mid ah oo ka koobnaa jin iyo insi iyo xayawaan badan iyo shimbiro uu isku keenay. safar buu galayay. ilaahay baa inooga waramaya waxushira lisulaymaan. ilaahay waxa uu leeyahay waxushira lisulaymaan. nebi sulaymaan waxaa loo kulmiyey junuuduhu ciidankiisii min aljinni jinka waalinsi iyo insiga ah waatayr iyo shimbiro fahum yuusacuun. waa la nidaamiyey, tartiib bay u socdaan, way kala dambeeyaan, nidaam bay u socdaan. ciidankaa faraha badan ee socda ayaa siday u soo socdeen waxay ku soo dhaadhaceen meel waadiya, webiya oo quran ay degtay, oo godad badan ka qodatay, oo guryo ka samaysatay, oo quraani ay degan tahay. hal quraana kor uga baxday tolkeed, meel saray taagan tahay. waxay aragtay xabadda quraantii nebi sulaymaan oo ciidankaa soo wata faraha badan ee jinka iyo insiga iyo xayawaanka wata. waxay aragtay siigada badan ay kicinayaan, guuxaan badan ay samaynayaan iyo farabadnidooda. waxay ku soo socdaan webigaas. xagga quraanjadu ay degan tahay ayay soo degayaan, way soo marayaan. quraantaasi meesha way ku dhiman, waa la dul mari, lugaha lala dhici, guryaha waa laga aasi, dhib badan baa dhici.
xabadda quraantii markay aragtay ciidanka faraha badan ee ku soo socda way qayliday turkeed bay u qayliday iyadoo u digaysa iyadoo u cabsanaysa in meeshaasi lagu laayo inay meeshaasi ay ku dhintaan ilaahay waxa uu yidhi isagoo oo inooga warramaya quraantii turkeed u qayliysay u digaysay u cabsanaysay waxay tiri yaa ayuha namlu quraanay afkay gacanta iska gelis quraanay qaydhadhaan bay ku dhufatay udkhuluu masaakinakum guryihiina gala laa yaxtimannakum ayayna inugu tuman oo inijijabini sulaymaan iyo wajunuuduhu ciidankiisii baa soo socdee wahum laa yashcuruun inama oga inama arkayo ciidanka faraha badan inama arkayaan ayayna inugu tuman nebi sulaymaan calayhi salaam hadalkeega wuu fahmay wuuna fahmi jiray nebi sulaymaan waa kii lahaa waqaala yaa ayuha annaasu cullimnaa mantiqa atayr waxaana la baray hadalka shimbiraha wa uutiinaa min kulli shay wax walbana waana la siiyey ina haada lahuwa alfadlu almubiin waa fadli cad oo ilaahay uu nagu manaystay nebi sulaymaan hadalkii xabadda quraanta iyo qayladeedii ayuu maqlay kadibna fatabassama daaxikan min qowlihaa hadalkeegii ayuu ku qoslay wuu joogsaday ciidankiisii buu joojiyey wuu leexiyey nebi sulaymaan calayhi salaam xabadda quraantii turkeed bay badbaadisay nebi sulaymaan wuu ku farxay wuu ku qoslay nebi sulaymaan ciidankii idilaana wuu leexiyey axibbatii fillaah duruus badan ayaan ka faa'iidaysanaynaa axibbatii fillaah darsiga koobaad xabadda quraantii tolkeed bay noolaysay way jirsiisay way badbaadisay waxaa laga yaabaa fardun qad yuxyi ummah qof quraati inuu ummad u nooleeyo ayaa laga yaabaa ummaddaa idil bay noolaysay may oran maxaa iga galay lafteedii lamay baxsan waxay isku dayday inay tolkeed badbaadiso wayna badbaadisay ummad idil buu qofi noolayn karaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam keligii buu ilaahay soo diray ummadda islaamka oo dhan oo kaa nooleeyey waa kaa isku xidhay cirki iyo samadii waa ka ummaddii islaynaysay adhijiraha ahaa geeljiraha ahaa qiimo aan lahayn taariikh aan lahayn qiimo u yeelee taariikh u yeele ee jirsiiyey ilaahoogii baray weligaa naftaada ha yaraysan waxaa laga yaabaa inaad ummad jirsiisid inaad ummad idil anfacdid baa laga yaabaa ibn nafiis waa ninka adduunka ku soo daray addawra damawiya dhiigga siduu dhiiggu jidhka u wareego oo dhan keligii adduunka faa'iido badan ayuu keenay ninkii thomas edison la odhanayay kooraankaa iyo tirigaa la shidanayo waa ninka adduunka ku soo daray marka weligaa naftaada ha yaraysan inaad ummadda badbaadisaa laga yaabaa inaad wax badan aad ku soo beerisid ayaa laga yaabaa quraanta miyaad ka liidataa darsiga labaad een ka faa'iidaysanayno taqdiimu almaslaxati alcaama cala almaslaxati alshakhsiya maslaxada guud ayaa ka horaysa mar walba maslaxadaada gaarka ah mar walba arrinta guud ee ummadda ayaa ka horaysa maslaxadaada gaarka ah quraantaasi nafteedii khatar bay u gelisay waa lagu tuman gaadhay waa lagu joogjoogsan gaadhay laakiin waxay xambaarsanayd hammigii ummaddeeda ayay xambaarsanayd ummaddaydu ha badbaado ayay istiri wixii ay samayn karaysay ayay samaysay marka arrinta ummadda ka horaysii maslaxadaada gaarka ah waxaa yareed rabtid ta ummadda aa ka horaysii maslaxadda ummadda taasaa muhiima arrinta saddexaad een ka faa'iidaysanayno waxa weeyaan al-inshighaalu biljuhd adigu dadaal la imo nataa'ijka iska dah
ilaahay baa keeni adigu beer ilaahay baa midhaha soo saari waxaa laga yaabaa inuu ilaahay kelmad aad jeedisay wanaag aad samaysay inuu ilaahay ummad idil oo ku intifaaco adigu sababta la imo waxaa jira siduu nebigu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam anbiya ilaahay uu soo diray qaar baa la iska wala diido maalinka qiyaamaha keligii buu imanaya qaar bay 2 qof soo raacayaan qaar bay 3 qof soo raacayaan qaar baa ummadda idin sida nebi maxamed oo kale alayhi salaatu wasalaam ummaddaas oo dhan ay u imanayaan maalinka qiyaamaha adigu sababta la imo kan wixii ummadda wixii aad wax ku qaban lahayd sababta la imo natiijada ilaahay u daa beer midhaha tuur adigu udda inta kale ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas nebigu waxa uu yidhi sallallahu alayhi wasallam midkiin geed yaroo timira hadduu hayo uu doonayo inuu beero ha beero buu yidhi hadduu karayo intuuna qiyaamuhu dhicin waxaa laga yaabaa adu sababta la imo inaad ajirkii heshid iyo xasanaad ayaa laga yaabaa arinta afaraad ee ka faa'iideysanayno taqdiim alxulul alcamaliya xal la imo xabada quraantii may oran alla kala yaacay alla baxsaday may oran xal bay la timid xalku muxuu ahaa udkhulu masakinakum guryihiina gala alla waa la jabay alla waa la baaba'ay alla war looma baahna hadal badan looma baahna waxa loo baahan yahay xal la imo udkhulu masakinakum markay tir guryihiina gala guryahoogii bay galeen way badbaadeen intii ay la iman karaysay way la timid xal la imo marka waa la baaba'ay waa la balanbalay waxba lama hayo waxaasi micna male udkhulu masakinakum guryihiina gala arinta shanaad ee ka faa'iideysanayno warka quraanjada ah waxa weeyaan niyadaadu inay wanaagsanaato haddii wax lagu sheego niyad samiil la imo calooshaada xumaanta ka saar malaha xun wax walba mala xun ha u fasiranin quraanjadana waxay tiri u fiirso laa yaxtimannakum sulaymaan wajunuuduhu wahum laa yashcuruun nebi sulaymaan iyo ciidankiisu ayayna ina jajabini inagu tuman maxaa dhacay way nagu xoog badan yihiin way noo xoog sheeganayaan iyo malaha xun way iska ilaalisay maxay tiri wahum laa yashcuruun inama oga war inooma hayaan hadda ina ogaan lahaayeen inagumay tunteen waan yaryarnahay ilaahay baa sidaa inoo abuuray sidaa awgeed mala fiican la kaalay warkaagu ha noqdo niyad sami niyadaadu ha fiicnaato haddii wax lagu sheego oo lagu yidhaahdo qofkaasaa sida malaha xun niyadaada ka saaro nebigu waxa uu iyaakum waddan malaha xun baan iniga digayaa fa ina dhanna akdabu alxadiid malaha xuni waa wax lagu sheekaysto waxa ugu xun buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam cumar ibnu khataab waxa uu yidhi walaalka haddii kelmad lagaaga sheego oo lagu yidhaahdo sidaasuu ku lahaa walaalka khayr ugu fasir kelmaddaas waxaa laga yaabaa inuu khayr u jeeday inuu wanaag u jeeday niyadaadu ha samaato ha fiicnaato niyad xumida iska ilaali axibbatii fillaah quraantaasi duruus badan ayaa ku jirta quraantu waa ummad weeyaan siduu nebigu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam nebi sulaymaan ayaa maalin ciidankiisii ka haystay roobdoon ilaahay bay doonayeen inay roob weydiistaan oo roobdoon ay tukadaan kadib markay banaankii u soo baxeen nebi sulaymaan wuxuu arkay quraan dhabarka u jiifta oo lugaheegii iyo qacmaheegii kor u qaadaysa markaasaa nebi sulaymaan waxa uu yidhi wuxuu maqlay quraantaasoo ku ducaysanaysa allaahumma innaa khalqun min khalqik ilaahayow waxaan nahay khalqigaaga ka mida ilaahayow biyahaan u baahannahay iyo roob hanina kama nihinoo kamanu kaaftoon biyo nebi sulaymaan calayhi salaam dadkii buu la hadlo waxa uu yidhi irjicuu faqad suqiitum bidacwati hayrikum waani liwaraabin ilaahay roobba inoo keeni dad aan inaka ahayn ayaa ducaystay oo ducadoodu ilaahay aqbala dib inoo celiya
xadiisku rawaahu imaamu axmed. axibbatii fillaah, waxaan kala soo baxaynaa duruus aad iyo aad u badan. warka quranjada wuu fara badan yahay, in badan adaan kuu daynaya, kala soo baxa. duruusta waxaa ka mida alsabr waljald. quranjada waxaa lagu yaqaanaa sabir iyo adkaysi. quraan ma aragtay weliga meel koraysa, dhagax siman bay koraysa ama gidaar bay koraysa, way kori, way ka soo dhici, mar labaad way kori, way ka soo dhici, way ku celin, marka dambe waxaad arki iyadoo oo dusha u baxday. waa adkaysi yeelo. waxa kale oon ka faa'iidaysanaynaa quranjada waxaa lagu yaqaanaa atacaawun, way isgargaartaa. quraanta layn bay gelaysaa, waxaad arki wixii ay qaadi kari weydo way iskugu yeedhaa, way wala qaadaa, way isgargaarsataa. mar walba quraantu nidaamkaasi ayay ku socotaa. waxa kaloon ka faa'iidaysanaynaa quraantu waa isku naseexaysaa. naseexo adiga arkaya, wanaagay is amrayeen, xumaanta iska reebayeen. waa quraan. udkhuluu masaakinakum laa yaxtimannakum sulaymaanu wa junuuduhu wahum laa yashcuruun. wanaagay is amraan. quraanta waxaa lagu yaqaanaa oo kale altartiib wa cadam alfawda, waxay ugu nidaamsan yahay. raashinka ay xagaaga cunayso, kajiilaadka ay cunayso, cuntooyinka qolalka ay leedahay wuu kala nidaamsan yihiin, waxeegu wuu nidaamsan yahay. waxa kale oo lagu yaqaanaa quraanta firfircooni iyo nashaad ayaa lagu yaqaanaa. weligiin ma aragteen quraan hamaansanaysa ama quraan maqaaxi fadhida oo ka shaahayso oo lugta duldhigateen ma aragteen? weligeed arki maysaan. nashaad iyo firfircooni iyo socod iyo shaqaysi ayay ku jirtaa weligeed. waxaa lagu yaqaanaa mujtamaca quraanjada waa mujtamac nadiifa, meel yar oo wasakha ma arki karaan. waxaa kaloo nebigu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam inay quraanjadu ay tasbiixsato. duruus badan iyo xikam badan ayaa ku jira. qisadaasi qisatu namla in laga faa'iidaysto oo dib loo akhriyo ayay u baahan tahay. xalaqo kale ayaa inagu soo socota oo qisasun fi lqur'aani alkariim. la socod wacan. wajazaakum allahu khayran. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.